xaflad ballaaran oo abaalmarino lacageed lagu guddoonsiinayo ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee magaalada Berbera. Tartankan ayaa lagu tartamayay 20 juz ilaa 5 juz waxaana ka qayb qaadanaya hablo iyo wiilal arday ah oo ka socday malcamadaha kala duwan ee magaalada Berbera. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan oo ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa hadal halkaasi ka jeediyay waxa uu ardayda ku booriyay barashada quraanka kariimka iyo xifdigiisa isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta tartanka quraanka kariimka. gudoomiyaha ururka wadaniga iyo feenka Cali Jaamac Araale ayaa tilmaamay inay tartano badan oo kala duwan oo noocan oo kala ah soo qaban qaabiyeen muddooyinkii u dambeeyay kana waramay marxaladii ay soo mareen. gudoomiyaha gudida qaban qaabada tartankaasi Sheekh Salebaan Cabdullaahi Cadib oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in dad badan oo ahlu khayr ay kaga qayb qaateen qaadaan kala duwan tartankani una mahadnaqay guud ahaanba dadkii ka qayb qaatay. Isduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil Sheekh Salebaan Saciid Cali ayaa isna ugu baaqay ardaydaasi inay kor u qaadaan barashada quraanka kariimka. xildhibaan Cabdi Jaamac Ducaale Cabdi Musbaar oo isna halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta tartankan quraanka kariimka. Jaamac Cabdullaahi iyo macallinkii dhexdhexaadinaya iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in tartanka quraanka kariimka uu yahay wax la qabto waxyaabaha ugu barakada badan. guud ahaanba tartankan ayay ardaydii kaalmaha sare iyo kuwii aan kaalmaha ka guuleysan lagu kala guddoonsiiyay jaayisada kala duwan iyadoo halkaasi ardayda ka muuqanaysay ka qayb qaatay tartankani farxad iyo rayn. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka caalamiga ah ee Cable TV Berbera.